السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawade halkan waa qolka 1046 goobta ay ka dhacday mid kamid ah dilalkii ugu xasaasisanaa ee la diiwaan geliyo. Dhacdo ku dhawaad 9 sano ay dambi baariyaashu soo saari waayeen xalkeeda. Aan kula wadaago kiiskii foosh xumaa ee halkan ka dhacay oo aad u kala dhigdhigan. labadii Janaayo 1935 nin magaciisa ku sheegay Ronald T. Owen ayaa wuxuu qolka ijaartay hotelka President ee magaalada Kansas, Missouri. Da'ahaan waxa lagu qiyaasay in uu u dhaxeeyay 20 ilaa 35 sano jir. Wuxuu ahaa nin timo bunni ah leh, misna calaamad dhaawac ay kaga taalo qaybta madaxa meel dhigtiisa wax yar ka koraysa. Wuxuu ahaa nin si wanaagsan u labisan oo suud madow ayuu xirnaa, balse wax alaab ah ma uusan sidan. Haddii ay ahaan lahayd boorso iyo wax la mid ahba. Waxa gacanta laga saaray furaha qolkiisa oo ahaa qolka 46 wuxuuna sidii ku aaday qolkiisa. Muddo markii uu qolkii ku jiro ayaa waxa qolkii u soo gargaraacday Mary Soptic oo ahayd mid kamid ah shaqaalaha qolka nadiifiya. Ronald wuxuu u ogolaaday Mary in ay soo gasho, sidii aynu ku soo gashay. Durbadii ay qolka soo dhex istaagtay waxay baaragtay qolkii oo mugdi ah, daaqadaha dhanna ay xiran yihiin, nalkii weynaana uu dansan yahay. Kaliya nal yar oo daciif ah mid kamid ah miisaska saaran ayaa daarnaa. Asagana wuxuu fadhiyay gees qolka kamid ah meel mugdina ahayd. Almuhiim waxba arin kale iskumaynan mashquulin waxay guda gashay in ay hawsheeda qabsato. Marka qolkii ay nadiifisay oo ay sii bixi rabtay ayaa Ronald wuxuu Mary ka codsaday in qolka aysan xirin maadaama qof saaxiibkii ah uu sugayo. Mary ayaa tiri wuxuu u muuqday qof wax ka baqaaya ama walwalsan. Shaqaalaha kale oo iyagana dhowr jeer qolkii cunno iyo wax geenayay sidii oo kale ayay sheegeen. Qol mugdi ah asna uu gees ka fadhiyo inta badan. Mary ayaa mar kale galabkii abaaro 10 saac oo kale ku soo laabatay qolkii Ronald si haddana go'yaashii iyo marooyinkii kale ee wasaqdaha ay uga bixiso. Markay qolkii soo gashay waxay ugu timid Ronald oo xiran dhar madow ah oo uu yara egsuud oo sariirtii jiifa. Waxay kaloo miiska meeshii yeelay ku dul aragtay warqad ay fariin ku qoran tahay taa oo u dhacaysay Don, waxaan ku soo laabanayaa 15 daqiiqo kadib ee isug. maalinkii xigay Janaayo 3 Mary ayaa subaxii ku soo dhalmatay qolkii Ronald. Markan waxay la kulantay albaabkii qolka oo qaybta sare laga xiray. Waxay istiri laga yaabay Ronald in uu kor ka xiray misna uu baxay maadaama shaqaalaha ay sitaan furayaal u qaasa. Waxay isticmaashay furaheeda oo albaabkii ay furatay. Durbadiiba waxa ka soo horbaxay Ronald oo dhex fadhiya qolkii sidii hore oo kale, nalkiina uu dansan yahay. taa oo micnaheedu tahay in qof kale uu albaabka dibadda sare ka xiray. haddii uu Ronald dhex fadhiyo, Mary afkeeda ma kala furin, waxayna bilowday in ay hawsheeda guda gasho. Intii ay qolka nadiifinaysay ayaa hal goor waxaa soo dhacay telefoonkii yeelay qolka. Ronald ayaa ka soo istaagay meeshii uu fadhiyay isagoo telkii ka jawaabay. wuxuuna yiri, Don, maya, ma rabo cunno, gaajana ima hayso, hadeertan ayaan qoraacday. wax yar kadibna si qayle ay ku jirto ayuu u yiri, maya, ima hayso gaajo. telefoonkii ayuuna isa saaray. Mary hawsheeda ayay iska soo dhamaysatay wayna ka soo baxday qolkii sida caadada ahaydba. haddana mar kale galabkii ayay ku soo laabatay qolkii, balse toobtan markay timid albaabka qolkii waxaba dhagaheedii ku soo dhacay cododka 2 qof oo rag ah misna aad isugu qaylinaya. albaabkii ayay u gargaraacday. durbadiiba waxa u jawaabay qof rag ah oo aad u caraysan isagoo ku yiri, waa kuma? waxay u sheegtay in shaqaalaha ay kamid tahay misna ay sido go'yaal cusub. waxaana loogu jawaabay, waxna uma baahnin ee iska bax. isla habeenkaasi naag degnayd mid kamid ah qolalka ku dhagan midkii Ronald ee 1048 ayaa sheegtay in ay maqashay codadka rag iyo qof dumar ah oo aad isugu qaylinaya. balse isla habeenkaasi waxay kaloo xaflad yar ka jirtay qolka 1055 oo isla hoolkaasi ku yeelay. marka waxay istiri waa xafladaasi dadka jooga. maalinkii labaad ee Janaayo 4 hal saac subaxnimo ayaa gabar kamid ah howlwadeenada hotelka waxay aragtay muddo telefoonkii yeelay qolka Ronald in uu receiverka iyo gacankiisa kala qaadan yahay oo waliba cidna aynan isticmaalaynin. isla markiiba wiil shaqaalaha kamid ah oo Randolph lagu magacaabo ayay ku tiri, ordo qofka qolkaasi jooga wargeli in gacanka telefoonka uu saaro receiverka. Randolph wuxuu tagay qolkii, albaabkiisana waxaa dul saarnaa calaamad ay ku qoran tahay waxba ha iqasin, balse taa uma aabiyeelin oo albaabkii ayuu gargaraacay. dhowr jeer marka uu gargaraacayay ayaa qof rag ah ku yiri, soo gal, nalkana daaro. balse markuu isku dayay in uu albaabkii furo wuuba u furmi waayay sababtoo ah wuu xirnaa. dhowr jeer kale ayuu albaabkii gargaraacay balse cidna juuq ma dhihin. wuxuu gargaraacaaba wuxuu si kor hal mar u yiri, gacanka telefoonka iyo receiverka isa saar. wuuna ka soo tagay. abaaro saacad iyo bar kadib 2 saac iyo 30 daqiiqo ayaa haddana mar kale gabadhii howlwadeenada aragtay in sidii oo kale uu weli yahay telefoonkii. markan waxay u soo dirtay wiil kale oo lagu magacaabo Harold oo isagu horay u soo qaatay furihii shaqaalaha. qolkii ayuu yimi, albaabkii ayuuna furay. wuxuu qolkii ku dhex arkay Ronald oo qaawan misna sariirta jiifa. jiif caadina ma ahayn ee xabad ayuu u yeelay. wuxuu kaloo arkay in sariirta qaybta uu ka jiifay ay yara madow ahayd maadaama qolkii uu mugdi ahaa.
ama muusan garanayn waxa madowgaasi uu yahay. Adigu wuxuu soo hagaajiyay telefoonkii, albaabkii ayuuna soo xiray isagoo isle laga yaabay in uu qamri iyo qashin kala soo cabay, sidii ayuuna kaga soo tegay. dhowr saacadood kadib, abaaro barqadii marka la maraayo 4 saac bar oo kale, ayaa haddana mar saddexaad gabadhii aragtay sidii hore oo kale in telefoonkii la kala qaaday. markan waxay u dirtay wiilkii koowaad ee Randolph asna furihii qolka ayuu soo qaatay, albaabkii ayuuna iska soo furay. se markii uu gudaha u soo galay qolkii, wuxuu arkay muuqaal run ahaantii argagax badan. markii uu qolka soo dhex istaagay, wuxuu arkay Ronald oo albaabka agtiisa yaala, jilbaha iyo xusuladana ku taagan sida qof sujuudsan oo kale, balse gacmihiisa ku haysta madaxiisuna uu aad u dhiigayo. durbadii Randolph wuxuu shitay nalka. qolka intiisii kale haduuba eegay, wuxuu arkay dhiig dhammaan qolka ku rafaadsan, derbiyada ilaa sariirta oo dhan iyo suuliga ilaa sagxadda kore ee qolka. intuu aad u fajacay ayuu qolkii ka soo cararay, sidii ayuuna ku yimid xafiiskii maamulka isagoo wargeliyey arrinkan. durbadiiba waxaa meesha yimid booliiska. Ronald waxaa ka muuqday jirkiisa xarig lagaga xiray qoorta, aanqowga ilaa iyo cududaha, gaar ahaan qoortiisa ayaa dhaawac xun ka muuqday sida qof la ceejiyey oo kale. sidoo kale lafta madaxiisa waxaa soo gaaray dilaac. dhowr midi ayaana lagaga dhuftay dhanka feeraha, taa oo mid ka mid ah ay ka dhex dustay sanbabihiisa. Dr. Flanders oo isagoo la socday qaybta emergency-ga ayaa ka jaray xariggii ku xirnaa Ronald, isagoo weliba su'aalaya yaa sidan kuu galay. Ronald ayaana ugu jawaabay qofna. daktarkii ayaa mar kale weydiiyey haddii uu isdili rabay oo waxaanoo dhan uu isagu isku sameeyey. Ronald ayaa haddana ku jawaabay maya, isma dili rabin. marka la weydiiyey maxaa sidan kuu galay, wuxuu ku jawaabay suuliga ayaan ka soo dhacay, madaxa ayaana derbiga ku dhufsaday. isla markiiba waa uu miir daboolmay, sidii ayaana loogula soo cararay isbitaalka. muddo yar kadib, nasiib xumo, Ronald wuu dhintay. booliiskii ayaa bilaabay baaritaanka kiiskan iyo raadinta reerka Ronald, balse talayaabka badneed waxay ahayd in gebi ahaanba la garan waayey Ronald oo xitaa ma jirin diiwaan ka yaalay xafiisyada dawladda ama xitaa isbitaalada. sidoo kale waxaa la soo saari waayey cidda ninkan sidatan ee naxariis darrada ah u gashay. marka ay gudagaleen baaritaanka qolkii Ronald si ay uga baaraan waxyaabo cadeynaya in Ronald uu isaga isdili rabay, maadaama uu horey u sheegay in cidna aysan sidan yeelin, wax ay heleen ma jirin. waxay waayeen hub ama wax ninkan uu u adeegsan karo in uu isku dilo, sida midi iyo wax la mid ah. sidaa daraaddeed waxaa daaqada laga tuuray aragtidii ahayd in ninkan uu isagu isdili rabay. wixii baaritaanka uu sii socdaaba, sawiradiisana lagu faafiyey dhammaan gobolada Mareykanka. waxa ugu dambeyn lagu guuleystay in la soo ogaado shakhsiyadda saxda ahayd ee Ronald. magaciisa saxda ah wuxuu ahaa Artemus Ogletree. muddo kadib ayaa haweeney lagu magacaabo Ruby Ogletree la soo xiriirtay booliiska iyadoo u sheegaysa in ninkan uu yahay wiilkeeda, magaciisa saxdana uusan ahayn Ronald ee uu yahay Artemus Ogletree. waxay kaloo ku dartay in wiilkeeda uu u soo diray warqado fariin ah ka hor inta aynan waayin meel uu ku dhibcay, si warqadihii uu u soo diray ma ahayn kuwa u eg qoraalkiisa ayay tiri. sidoo kale xilligii lagu jiray duugitaanka Artemus, waxaa jiray nin rag ah oo la soo xiriiray xarunta meedadka ee ku shaqada lahayd duugitaankiisa, isagoo u sheegay in wiilkan ay ku duugaan qabuuraha Memorial Park Cemetery, dhammaan qarshaadka ku kacayana uu asaga diyaar leeyahay. maalmo kadib waxaa boostada xaruntaasi lasoo dhigay ubaxyo ay ku dhex jiraan dhammaan lacagihii uu u ballan qaaday. booliisku marna ma awoodin xalinta kiiskan ama inay soo saaraan qofka uu yahay Don, oo gabadha shaqaalaha ay maqashay isagoo Artemus la hadlaya, mar kalena ay aragtay fariintii loo dhaafay. balse waxaa jira dhowr aragtiyo ay dambibaarayaashu soo jeediyeen, sida macquulgal inay tahay Don iyo Artemus in dagaal uu dhex maray, Donna uu sidaa ku dilay Artemus misna meesha uu ka cararay. sidoo kale ninkii la soo xiriiray xaruntii duugista meedka in suuragal ay tahay in uu ahaa Don. sidoo kale nin ka mid ah shaqaalaha hoteelka ayaa u sheegay booliiska in qiyaas xilliga dilkan uu dhacayay uu gabar ku arkay mid ka mid ah jaranjarooyinka hoteelka, misna ay weydiisay in uu u tilmaamo qolka 1026. muddo kadibna uu arkay iyada iyo nin isla socda oo hoteelka kasii baxaya, mar dambana uusan dib u arag labadoodaba. lagana yaabee in gabadhan ay raadinaysay qolkii Artemus oo ahaa 1046 kuna qaldaysay 1026. qofka la socdayna uu ahaa Don oo isagu qolka Artemus kaga horeeyey, sidiina ay ku dileen. halka baaritaano kale lagu soo ogaaday in Artemus uu xilliga qiyaani jiray gabadhii lamaantiisa ahayd, lagana yaabo ayada iyo walaalkeeda in ay dileen maadaama dhowr jeer sidaa ay ugu dhaaratay. almuhim, kiiskan ilaa maantay wuxuu yahay mid aan la xalin. taa waxaa kaaga sii daran, maxaa ninkan ku qasbay in magaciisa uu bedelo? muxuu mugdiga qolka ugu jiray mar waliba? teeda kale, yuu ahaa ninka ku jiray qolkiisa oo ka diiday Mary in ay soo gasho? adigu maxay kula tahay? halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalka. waa inoo iyo kulantay dambe. ammaan Allah.